Ma taqaanaa sababta dadka badankooda aysan weligood fluent ugu noqon Englishka? Sababtoo ah waxay bartaan iyagoo aan lahayn roadmap cad. Aan ku sharxo. Haddii aad rabto guul dhab ah oo English ah, waxaad u baahan tahay 4 waxyaabood. Marka koowaad, waxaad u baahan tahay goal ama hadaf cad. Marka labaad, waxaad u baahan tahay qorshe cad oo goolkaas ku gaarayso. Marka saddexaad, waxaad u baahan tahay waqti go'an nolol maalmeedkaaga ka mid ah oo Englishka u gaar ah. Ku dhagaysato, ku akhrido ama ku barato. Marka afaraad, routine maalinle ah oo nidaamsan. Haddii uusan jirin structure, waxbarashadu waad ku wareeraysaa. Laakiin marka maalmahaaga la nidaamiyo, Englishkaagu si automatic ah ayuu u bilaabaa inuu horumar sameeyo. Taasi waa sirta dadka badankood ay seegaan. Maaha talent, maahan courses qaali ah. Waa clarity ama hadaf cad, routine iyo joogtayn. La wadaag qof si adag ugu dhibaatoonaya barashada Englishka.